maadaama uu sinada xaaraantinimeeyey waxa uu sameeyey wax la yidhaahdo ka hortag uu kow ka yahay guur الزواج in labadii qofki inuu lamaano yeesho rag iyo dumarba waxa ugu weyne islaamku uu kaga hortega wey waayo baahidiisa buu qofkani gudanaya dariiqo sharciyana waa ku gudanaya ilaahay baa dhigaya wuxuu in yakunu fuqaraa yugnihim allahu min fadli bacda wankixu layaama dadka aan xaaska ahayn u guriya baa ilahay weliba hadday fuqara yihiinna ilaahay baa geli doono oo aqniyo ka dhigi doono waxyaabuu kaga hortegay waxaa kamid a wuxuu diiday alkhulwatu biajnabiya laba kale ajnabiya nin iyo gabar inay meel isla galaan oo maanta iska caadiya gaarina in la wada raaci karo xafiisna la wada geli karo binantii innaga inaga mid ahayd iyo nin gaala hadduu doono hayntii u shaqaynaysa xisaab ay wada geli karaan intii alla soo xidhaan cid kaleba iska daayaan rasuulki ilaahay sala allahu calayhi wasalam uu ka digo wuxu uhi laa yakhluwanna rajulun bimraa nin gabadhiu la gooni noqon oo uu meel la geli waayo shaydaan baa ku kaxaynaya iyadana laabteedu soo haraaciyaya isagana sidaas uu xalantaynaya kadib haddaad waxaa samaysay buu ka kale ku leeyahay maxaa dhibee jira dabeetana beliya baas baa ka dhacay ka hortagku islaamku sameeyey waxaa kamid a wuxuu xarama nadar ila jinsi ilaakhar qof inuu ka kala eego oo uu xaaraan ku eego ayaa la diiday qur-aankaana ilaahay uu kaga hadlay raggiina si gaar ula hadlay dumarkiina si gaara qul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum waqul lilmu'minaati yaqududna min absaarihimna wayaxfadna furuujahum ilaahay baa caalamka kore fariintan kasoo faray nabi maxamed fi kitaabihi kariima wuxuu leeyahay raggana gaadsii fariin gaara dumarkana fariintaa gaadsii raggu yay eegin dumarkuna yay eegin ragga eegmadii xaaraanta ahayd wey ee qof kasta oolaanu ku eegayay si kale ee ajnadiga daliilkaba marka laga tago shucarada iyo dadkii gabi jiray waxay tilmaamayeen dareenkooda halka ay ka qaadaan inuu isha yahay in shaaciraan wuxuu lahaa qadiiman kullu lxawaadisi mabda'uha annabaru wa mucdamu nnaari min mustasqari shar arrimahoo dhan waxay ka bilaabmaan eegmada sida dabka weyniba dhigniinaha duulduulaya uga bilaabo mid kalena wuxuu lahaa nadratun faibtisaamatun fasalaamun fakalaamu famawcidun faliqaa labadii qof way seegayaan dabeetana way isu dhoolata cadaynayaan way isbariidinayaan way issalaamayaan way iswaraysanayaan waanay ballamayaan waxa islaamku ka hortaga ku sameeyey xataa cawrada waxaa cawro oo dhan la idhaa in la diiday la eego markaasuu nabigu lahaa xadiidkii muslimu warinaya ku sugnaayo laa yandur irajulu ilaa cawrati rajul ninku yuu eeginka kala cawradiisa gabadhuna yay eegin gabadha kala cawradeeda markay u sahlan tahay fitnu halkaa ka qaadaya markay u sahlan tahay waxaa kaga dhici doona il iyo aafaadka marka xataa jinsi waliba gaarkiisa lama ogola in cawradiisa uu sheego sababaa islaamku waxyaabuu kaga hortagay waxaa kamid a tawaruj iyo isqaawinta in raggiina uu isu soo qaawiyo dumarkiina ay isu soo qaawiyaan labadaba waxaa antinimey sababtuna waxa weeye ka hortaga sinada ayaa laga hortagay allana waxa ui waqarna fi buyuutikun walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati lula guryihiina ku sugnaadana u fayfaydanina ha isu qaawinina jaahiliyadii carbeed say isu qaawin jireen jaahiliyada casriguna way kasii qaawanaan badan qaawanaantuna waa saddex nooca qofku inuu gashado dhan ku dhegan oo xubnihiisa mid walba meel si gaara muujinaya rag iyo dumar mid kasta waa nooc qaawanaan waa shaarkii surwaalkii aada isugu dhajiya ama haafkii iyo shaarkii ay gashanaysa gabadhi aada isugu dhajinaya waa moodada wasbiyada dambe socotee daayarta ku arkaysa naanta salalkeedii baa muuqanaya naasaheedii baa muuqanaya garbaheedii bowdiheedii dawaanuhu waxaad ama waxaad ka fikiraysaa siday qofkani u gashataa dharka ama siday u bixisaa oranaysa nooc qaawanaan wey qaawanaanta labaad waxa weeye qofki inuu dharka gashado dhar khafiifa oo halkaa cawradiisi iyo jidhka midabkiisii laga arkayo qaawanaanta saddexaadna waxa weeye qofki inuu jidhkii waxna ku xidhan yahay dharkii waa sida dumarkeedu isaga badan yahay in dee cagii iska muuqdaan oo gacmihii iska muuqdaan oo laabtii iska muuqato oo iyana waa qaawanaan saddexaad saddexduba waa tabarujka ilaahay aayadda uu ku diiday subxaana islaamku waxa uu xaaraantinimeeyey sinada waxa la idhaahdo واعتبرها جريمة قانونية وحاول تسكريه إنه تهي جريمة لقليه وحال عقابات له هال عقابات طيلات ولي بقوة واضح سقطك بني آدم كان لو تروح أو ضرر إنك أحد لو تروح
شيء كليه دغح lagu dilo qofka qofkii loo naxariisanay ee muslimka waliba isagoo islaamnimadi ka bixin la gaalnimo loo dilayo qofka marka uu zaani yahay xaafara oo soo maray dhagax lagu dilay waxa loo dilayaa waa xad ciqaabad kale isagoo muslim ah xabad lagu dilayo taas lagu dilayo dhagaxa qurana wada tuurka ayaa hareeraha la iskala taagaya isagoo qaylaya ilaa inta ka fawranayso gaal kastaanaha diido albaani kastaanaha diido sidaas ayaa ku sugan aayadda qur-aanka ee lafdigeeduna uu mansuuqa yahay xukunkeeduna uu saabit yahay axaadiistana saxiixana sidaasaa ku sugan marka jariimadaasi foolxumo inta ay leegtay dee waxa kugu daliila sida qofkan loo dilaya aad iyo aad u adag jariimad qaanuuniya wey saa daraaddeed baa ilaahay walaa taqrabu zinaa innahu kaana faaxishatan wasaa sabiila ha u dhawaanina la diiday waa intaa ay soo tirin intaasoo dhan oo la diiday waa u dhawaashii bay noqonaya wada la maro isaga ayaa innahu kaana faaxish waa foolxum waa ceeb wasaa sabiila wada qof hamadiisa uu ku gutana zina ayaa u xun oo u liidata xikmadaha loo diiday bahashaa iyada ah da'yartu aada u ogaada xikmadaha loo diiday ugu horreynta waa ilaahay maslaxadeena yaqaana subxaanahu watacaala wuxuu ilaahay kuu diiday dani kuma jirto ayaa daba iyo araxjaguba ku jira arrinta labaad wuxuu weye innahu yufsidu nidaama albayt wa yucaqidu alawlaada lilinxiraafi waljariima nidaamka guriga ayuu aafeeyaa ubadkana wuxuu ka dhigaa dad mujrimiina oo hadka toosan ka baydha waayo marka sinadaas qoysaskii ay dhex dhacdo dee waxaa iska macruufa in qoyskaasi burburay kol hadduu ninkii daaqaa ku arkay gabadhii iska daa intuu ku arko kol hadduu ku tuhmo inuu furaada cala tuul iska macruuf sidoo kale sharciga de waa faraya qofku hadduu ku ogaado gabadhii siro inuu lacaan sameeyo sii qabin waxaa kaloo jira ubadkii halkaa ka soo baxayna ubadka ugu mujrimsan ee ugu khatarsan ee cugdada badan ayay noqdaan mujtamaca dhexdiisa lidaalika caalamka islaami waktiyada ay dagaalamayeen gaalada wakti ka mid a ayaa waxay ururiyeen dad fara badan ayay ururiyeen oo awlaada sinada ku dhalatay hablihii ay ka qabsadeen gaalada markay muslimiinta kusoo duuleen ayay qaar badan ururiyeen hablo aada u badan oo tobanaan ku gaadhay faranjiga ay waktigaa u badnaa xuruubtiiyo dagaaladii ka dhacaya andalus bay ahayd dabeetana awlaada aan lahayn aabbaha ayay muslimka kusoo daayeen ee wakti dheer kaga argoosanay xikmadaha waxaa ka mid a fiihi biyaacu nasab wa tamliiku lamwaali ligayri arbaabiha cinda tawaab waxaa meeshii dhacaya nasabki inuu lumo nasabkuna waa muhiim qofku ciduu ku tirsado oo ku abtirsado oo ku ididishaani jiro qofku marka aanu lahayn intuu weynaado ciduu ku abtirsado aanu garanayn waxyaabaha mujtamaca uu ku nacaya cugdada ku abuuraya wey ninbaa wuxuu iga waranaya awlaadda aan aabaha lahayn baanu xanaanaynaa dhibka loogu badana waxa weye inuu marka uu weynaado wax kala gartu qaal gaado ayuu idhaahdaa aabahayme hooyaday meela jawaabtaasi aad bay noogu adkaatay waxaanu nidhaahnaana u adkaada hebel baa lagu dhahaa ee kanaan ku abtirsanayaa ma itus maxaanu ku nidhahnaa ma waa lagu soo helay ma aaba malihi markaa dhibka noogu weyn kaasuu noqdaan sidaa daraaddeed haddaanu helno cid aanu ku tiirino ama tidhaahdaba anaa kaxaynaya kaasaanu faylka ugu qornaabi si aan uga nasano hawshiisa waladkaa ilaa inuu isdila ama wax dilaa ama meeshaba iskaga tago ayaa arrintu ay noqonaysa waxaa dhibaatada ku sugan ay tahay xoolihii oo ay qaadanayaan cid aan lahayn waayo waladka layidhi meherka horaysiis weeye haddii ha dhaxladee muu dhali sharci ahaa nudfadiisii canuustiisii lahaa laakiin midka sharcigu ku xisaabtamaya waxa way caqab saxiix meher saxiixi haddaanu jirin ma dhaxli karo aabihiina ma lidalik waktiga la isdhaxlaya hadduu xoolihii qaaso qof aan lahayn waa dulmi wa fiihi aydan taqriib bizawj liannahu yaquumu bitarbiyati gayri walad aabihii oo lagu kedinayaa meesha kasoo baxayso la khiyaaday khiyaano weyn baa kasoo baxay hadday u qariso ooridu ninkeeda walad aan u dhalin waa khiyaano aada u weyn ayay samayso khatar badan sinadu sida waktigan macruufka ah cid waliba ay ka markhaati furaysa waa sabab fi intishaari alamraad alkhatira cudurrada dilaaga khatarta badan ee noocyada kala duwan lahayd maanta iska garanayna ay isku khatartay dee baasha laga qaadaa waa taas waa sinada wahuwa axadu asbaab alqatl
sababaha dilka keena ee ugu badan wey